أصحاب تقييمها شرفت له waxaan leeyahay caawa film cajiib ah kaasoo in badan la sugayay filimadaas oo ah 4 filim oo la kala dambeeya midka kale ka daran yahay oo soo baxay bishan April aan ku jiro Hero Band waxa ku baxday lacag 54,000 oo karoor meelahaas ku dhawaad waa filimkii bishii hadda ugu qaalisanaa intii ku baxday filimadii oo dhan Hero Band waxa jilaya tooro waxa ka aday Gorof Shariif ninka taqaanaan oo ku jiray Pablo Dirishada Tara Sundira oo ku jiray sayidana India khaynka ah ninkii Soomaalidu la baxday dooro Nawaal Sudiin oo isaguna ku jiray Lala filimkan waa filim aad iyo aad u cajiib ah waxa uu leeyahay qayb waxa soo galaysa sixira oo khaynku Lala sixir ayuu wataa marka dambe kadib waxa la sixiraa tooraha oo ah Tiger markii la silco rafaad wax badan markuu soo maro kadib ayuu ka soo dhaxbaxaa Lala sidaas ay lagu soo aadaa kadib waxa dhaca Lala inuu sameeyo waxyaabo dhan oo ah mukhadaraadka waxaasoo dhan uu isaga aftuubo uu geeyo Egypt meelaha wadamada 4 wadan uu kala geeyo ayaa dhacaysa kadib uu wareega in badan markuu wareego ayaa tooraha la soo qabtaa hadana waa la ciqaabaa laakiin filimkan film cajiib weeye in badan baa la sugayay malaha 2 sano aan dhahe markuu jilay koogiisa wuxuu soo baxan jeclahay 2018 Hero Band wuxuu soo baxay 18 bishii shanaad meelaha ilaa hadda waxa ka soo wareegatan jeclahay ilaa 2 sano kulli filimkan waa film qiso gooni wata maadaama ay aad badan u sugayeen dad badan waxaan arkay xaysiiskiisa isagoo in yaraado yar haddana ay dad aad badan daawanayaan wallaahi waa cajiib runtii filimkan in badan baa la sugayay kulli adigaagana dhageysanaya waad u baahan tahay filimkaas inaad wax ka ogaato xataa daqiiqad baa la ka yeelay haddii aad u baahan tahay inaad ogaato fadlan horta tag channelkayga aan ku leeyahay qaybta Telegramka soo subscribe garee ama join soode si aad uga noqoto asxaabta igu xidhan qaybtayda Telegramka kana waxaad ii saartaa subscribe si aad u ogaato wax walba cusub oo soo dhigno kambalelkana furo mar walba wax soo dhigno si aad u aragto fadlan daawade aan sii wadano hawsheena Hero Band waa film aad iyo aad cajiib ah laakiin waa wankiisii ma dhaweyn talo haddaad daawan wankiisa xataa waxaad ka helaysaa qaybtayda Telegramka adiga mudan kan gudubno Hero Band waa film aad iyo aad loo sugayay waxaad ka arkaysaa xaysiiskiisa qaybtan kore haddii aad u baahan tahay isagoo dhammaystiranna waan soo gelin doonaa insha Allah bishan filimka labaad ee aadka loo sugay isaga waa Jersey waxaa wada dooraha caanka oo ah Shahid Kapoor ilaa waama ayuu jiljiray filimadaas malaha hadda 40 iyo waxbuu jilayaa kaliya intaasoo filim 40 iyo waxbuu jiraa waan jeclahay dhahe fadlan ka gudub Jersey waxa uu ku baxday meelaha 30 iyo 4,000 karoor baan jeclahay intaasna ay ku baxday intii soo dhigayeen ayaan jeclahay laakiin Jersey waa film aad iyo aad xamaasad leh qaybta India kulli anaga nama qosayso waa ciyaaraan taasi ka gudub ha haatee Jersey waa film aad iyo aad xamaasad leh dhiigelin leh iyo wax waliba qaybtaada markaad fiiriso waxaad arkaysaa xamaasadda ku qaaday gooraad isaga la jirtay ma garanaysid iska gudub Jersey waan hayaa haddii aad u baahan tahay waxaad ka helaysaa isagoo ah Telegramkayga Haykal Studio adiga mahadsan filimka saddexaad aan ku sii wado waa RRA haddii aad u maqashay filimkaasi waa film aad iyo aad loo wada sugayo xamaasad gooni wata wuxuu ku saabsan yahay xataa aan kaaga sii dhacay waa wadan la guumeysanayo guumeystu haysto ay joogaan dad badan guumeysta markuu ku haysto waad arkaysaa ciqaabtaad marayso laakiin si wuxuu leeyahay dhiirgelin aad u fara badan waxaana ku baxday lacagta ugu qaalisan
filim lacagtii ugu badnayd ee filim ku baxda 2022 dhexe ayay ahayd filimkaas. RRA waxaa wada 3 atoore kolleyba saad u taqaanaan Ajay Devgan oo ah isagu khaayinka filimka ugu weyn, Ram Charan oo ah isaga atooraha, iyo welibana NTR ay jilayaan. labadoodu waa walaalo say ku jilayaan ma sheegi karayo, balse laakiin waa filim aad iyo aad xamaasad gooniyo wata leh. waxay ku leeyihiin waxa uu la dagaalayaa qayb libaaxa. waan ku tusayaa, waad arkaysaa hadda fiidiyoogaba adigaagan daawanaya, laakiin waxa uu leeyahay xamaasado aad u kala googooniya oo kala sarreysa oo waxa lagu tilmaamo aan sheegi karaynin, laakiinse wuxuu wataa cajiib weeye, wallahi iyo billi cajiib weeye. filimkan isaga inta la sugayay iyo inta la sii yardiidaynaya kolba in yar inta la sugayaa ka fara badan, waayo qof walba xamaasad gooniya ku wadataa. waxaana la sugayay intaasoo sano aan dhehe 2 sano gudahood, haddii 2 sano la xayeysiinayay, laakiinse bishan wuxuu soo baxayaa ciidda dhammaan. hadda 3 filin mooye hal filin mooye 3 kale oo dhan waxay soo baxayaan dhammaan ciidan insha Allah. aan dhehe ninkuu ilaahay gaadhsiiyo unbaa arki doona ciidan Ramadaan insha Allah. filimka kale aan ii sheegayo qaybtan waxaa wada Run Away baa la dhahaa filimkan. kolley waad aragtay Run Away 34 orodkii 34. waxaa wada filimkan Ajay Devgan iyo welibana ninkii dheeraa ee loo yaqaanay Soomaalida ay u taqaanay Cali Dheere. filimka 3daas ayaa wada, 2 ayaa wadan jeclahay. filimkan waa qayb diyaaradda, waa uu xamaasad isagana aad u gooniyo leeyahay. filimkan isagana in badan baa la xayeysiiyey. haddii aad u baahantay isagoo dhammaystiran waxaad ka heli doontaa channelkayga Telegramka Haykal Studio. fadlan adiga mahadsan, waxaan kuu soo dayn doonaa filimo aad iyo aad ku xamaasad geliya insha Allah hadduu ilaahay naga yeelo. fadlan hadduu ilaahay ku gaadhsiiyo waxaad ka daawan doontaa channelkayga.